meelaha qaarkood 30 kilomitir ayaa nolosha xeebta iga furtaa dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego hab nololeedkaas ama sidaas ma aha sida aan uga faa'iideysan karno khayraadka aan tirada lahayn iyo barwaaqada badaheena taala sidaas daraaddeed dhammaan wasaaradaha dowladda federaalka ah ee wasaaraddaada ay ka mid tahay wasaaradda kalluumaysiga iyo blue economy ay ka mid tahay wasaaradda environment wasaaradda arrimaha gudaha ay ka mid tahay dowlad goboleedyada dhammaan sidii loo abuuri lahaa loo aasaasi lahaa looga shaqaysi lahay dadka Soomaaliyeed badaha ay soo degaan kuwa badan oo aan xoolo haysan oo aan xoolo meel lagu dhaqdo badda agteeda kuma taalla aan cudurdaar ka dhigan karin oo waxaa jira haddana ayagoo faqri ah badda meel ka fog ku nool halkii badda haddii ay yimaadaan la hubo noloshooda inay isbedeli lahayd oo nolosha maanta miyiga ay kula nool yihiin oo xoolo la-aanta ay ku hayso mid ka dowlad ku helaan sidaas daraaddeed waxaana saaran mas-uuliyad inaan dadkeenna hab nololeedka reer guuraaga ah hal subax ma bedeli karno laakiin inaan dhiiri gelin annagoo hab nololeedka reer guuraaga ahayna horumarinayno oo dhaqaalinayno oo wuxuu mudan yahay iyo waxa ka maqan waxa ku habboon intaba la raadinayna haddana waa inaan dhiiri gelinaa horumarinaa fududaynaa haddii aan nahay dhammaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qaybeeda kala duwan dadku sidii uga faa'iideysan lahaayeen badda waxa ugu horeeya caqabadda ugu horeysahay ee dadka badda ka fogeynaysahay waa infrastructure la'aan wadooyin la'aan waxyaabaha kale oo ayadana aad inay dadka Soomaaliyeed dib u dhigtaan u baahan waxay tahay gaadiidka badda meeqa magaalo oo dalkeena ku taala ayaa la isaga gudbaa gaadiid badeed ma jirto qaybahaas bari ee Puntland ayaa laga yaabaa inay dadka isticmaalaan meelaha qaarkood gaadiidka badda laakiin dhulka inta ka soo hartay gaadiidka iyo jasiiradaha ku yaalla muxuu jubbooyinka oo ayagana damiinis kala aan lahayn laakiin lama isticmaalo gaadiidka badda waana meesha gaadiidka ugu fudud ugu fiican dhaqaale ahaan ugu waxaysan asaguna wuxuu u baahan yahay in loo helo infrastructure haddii shalay ay ooltu noo rabnaa jirtay oo markii ku xigtay ay baabuurta noo rabnaa jirtay baryahana ay diyaarada noo raran yihiin waxaana looga baahan yahay inaan dooyaha iyo maraakiibtana qaadano marka waqtigeedii aan joogaa qarniga 20-aad ku jirnaa hawshaas hawl aad iyo aad muhiim u ah oo dowladda Soomaaliya in ay priority ka dhigto saaxiibadeena caalamka ee dalka inay investigareystaan rabana ay ku talagalaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo private-ka Soomaaliyeedna ay ku talagalaan horumarinta badda fursadda ugu weynaa ka jirta hadday tahay khayraadka badda ku jira hadday tahay dalxiiska iyo hadday tahay gaadiidka iyo noocyo kala duwan oo masaalix ah oo waaweyn ayaa ku jira isticmaalka badda dowladda sanadaha soo socda iyo qorshayaasha dambe ee soo socda ee 5 sanadlayaasha ah waxaa muhiimadda koowaad la sii doonaa badda iyo waxyaabaha la xiriira waxaan rabaa sidoo kale halkaa in la sheego dowladda Turkiya oo framework agreement guud oo istaraatiijiga ah wada leenahay dhexdiisana shaqo badan ay ka socoto waa dowladda ugu horeysa ee dadka Soomaalida faa'iidadeeda wax ka soo gaaraan ku garab istaagta Soomaalida lama imaaro niyo kala qatabay aysu ogola kan ma ogola laguma aamini karo dadka muxuu ahaa aqoonyahanada noloshooda ay maxaa ay qatar ay muqtabada waxa soo ayadoo ay jiraan la leeyahay sanado badan la dhahay ayaa dowladda Turkiga waxay go'aansatay qalabkeeda technology-ga kuwa ugu casrisan ugu dambeeyay iyo dadkeeda kuwa ugu aqoonta badnaa inay u soo dirto Soomaaliya oo ay keento
haddii ay tahay sida hadda saabka safiirka oo ka sheegay kalluumaysiga oo fleet ballaaran oo dunya iyo maraakiib kalluumaysi ay u soo dirayso Soomaaliya dhawaan soo gaari doona haddii ay tahay qaabayntii habka looga ganacsanayo loo isticmaalayo kheyraadka badda oo khubaro ahaan ay iyo farsamaan nala dowladda Turkiga laga saaciday hadday tahay amniga badaha oo nafsadeeda ay naga saaciday maalgelin aad iyo aad u badan ay ku bixisay hadday tahay Soomaaliya kheyraadkeeda lama soo saari karo shidaalkeeda lama baari karo lama tegi karo burcadbadeeda joogto bariga shabaab jooga kan hadday ahaayeen la beediyey oo maanta aan rajaynayno ilaahay idankiis weli ma ogin laakiin aan rajaynayno in mar dhow ayadana khayr waxaan rabaa marka inaan si gaar u mahad celiyo dowladda Turkiga iyo madaxweynahooda Rajab Tayyip Erdogan oo qaatay go'aamada istiraatiijiga sidoo kale saaxiibada kale Yurub iyo Ameerika iyo Khaliijka iyo Afrika inteeda kalaba degan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliya fursadaha ka jiraan caqabadaha la sheegayaa kuma gudbana in badan oo kamid ah waa laga horleexiyay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin waxa caqabadaha ku dalkan hadday tahay argagixiso hadday tahay burcadbadeed waxba badan isma dooriyaan waa dad caqabadka Soomaalida dabar ku haya inaanay soconin oo qaybkood inay ka daba tegin fursadaha ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan ayadoo kheyraadkaas iyo barwaaqadaas oo aan leenahay korkeeda in ummadda Soomaaliyeed macaawin ugu dhimataa shabaab burcadbadeed qashin dowladdiidoo dhan ayaa runtii iyo mas'uulka maanta dadka Soomaaliyeed waa arkeen waa marka waxaan rabaa caalamka inaan u sheego sida hadalkeygii ku jirtay Soomaaliya waxay u furan tahay ganacsi Soomaaliya waxay u furan tahay partnership iyo wadaag Soomaaliya waxay u furan tahay maalgashi aan leenahay adduunyadu Soomaaliyadii qarnigii 20aad ma aha Soomaaliyada qarnigii 20aad Soomaaliyada qarnigii 20aad waa ka duwan tahay Soomaaliyadii qarnigii 20aad adduunyada waxaan leenahay waxaa horay loo soo maray fursado badan oo dayacay a lot of missing opportunities marka it is the time for grasping the opportunities waa waqtigii fursadaha laga faa'iidaysan lahaa Soomaaliya adduunyada dhan way u furan tahay first come first serve ninkii soo hormara ayaa nale so waxaan adduunyada ugu baaqayaa dhammaan fursadda ah afka qaraad lagu yiraahdo first move advantage horeeya doorashooyinka noocii maxay yihiin horeeya guulaysi Soomaaliya ama soo hormara lana aad iyo aad loo mahadsanyihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha saxaafadii Sootino noo daafuray shirka qadaha Soomaaliya waa tahay markaan waxaan amaqaadi doonaa barnaamijkeena dadkan miisku waxyar aan fariisano baana iskaashiga mudooda wixii saadan ugu horeysa gelina bahda protocol ee barnaamijkeena ka codsanaya Soomaaliya waxay leedahay kheyraad badan oo dabiici ah gaar ahaan dabcan xeebta ugu leh Afrika waxay nahay kalluunka noocyada badan dalkeena kalluun laga hela milixda ama cusbada badda si weyn ganacsiga uga qayb qaadan karta dekadaha iyo gaadiidka badda waa qaybo ka mid ah
waxyaabaha muhiimsan loogu falanqeyn doono saliidda iyo gaaska waxaa jira rajo ku saabsan kayd saliid iyo gaas oo ku jira badda Soomaaliya baaritaanada iyo sanadka way socdaan waxaa rajeynayna natiijo fiican inay ka soo baxdo insha Allah dood xiisa badan oo soo socota oo ay ka qayb qaadanayaan wasaaradaha kheyraadka dalkeena inta madaxweynaha Soomaaliya soo noqonayaan aan sugeynaa ميسي زيادة Aduh, mikrofon ada Ali mana? Tapi mungkin هل حق لو ودي يبادلوا حرير كرافي عنده شروطنا يا أستاذ